نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، موضوع محاضرته أي كسب سنتهي وموضوع aad maqlayseen oo ah carada sida loo daaweeyo iyo aadaabteeda. waxaan ognahay waxa la yiraahdo carada waxa asal u ah xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam. nin saxaabi uu nabiga u yimid markaasuu rasuulka ilaahay ii dardaaran, kaasuu nabigu wuxuu ku yiri ha caroonin. haddana wuu ku celiyey, wuxuu nabigu ku yahay caroonin. wuxuu leeyahay xadiidku faraddada miraaran, marar buu ku celceliyey. mar walbana nabigu wuxuu lahaa laa taqdab, ha caroonin. xadiidkaas markay dadku maqlaan waxaa dhici karta inay isweydiiyaan su-aal ah, qofka bini aadamka ah oo aan caroonayn maba jiraba, maba dhici karto qof bini aadam aan caroonayn inuu jiro. marka bal xadiidkaas mafaahiimta laga fahmayo iyo baabka carada ah, goormuu qofku caroon karaa iyo goormuusa caroon karin baan insha Allah ka hadlaynaa. kelimada la yiraahdo al-ghadab oo maanta muxaadaradeenu ay ka hadlayso waxay ka soo horjeedaa ama ay opposite u tahay ama ay did ku tahay kelimada la yiraahdo ar-rida, raalli ahaansho. qof raalli ah iyo qof caraysan. waxaa la yiraahdaa kalimatul ghadab markii luqada carabiga la tacriifiyo waxaa la yiraahdaa waa kalima tadullu ala shiddati wal quwwa, kalimad ku tusaysa adayg iyo xoog bay ku tusaysaa. waxay culimadu ku tacriifiyeen ama ay ku qeexeen macnayaal kala duwan. waxaa ka mid ah culimo tiri markay kelimada fasirayeen qadabku waxaa weeye waa shay'un yudakhilu quluuba annaasi, waa wax qalbiga bini aadamka gala. wa huwa thawraanu dami, dhiigga qalbiga marka qofka kacaya. waa dhimbil dab ah oo qofka qalbigiisa shaytaanku ku tuuro mararka qaarkood. mararka qaarkoodna waxyaabo aan shaytaan ahayn baa qofka qalbigiisa ku tuuri kara waxaas qalbiga ku dhacaya oo uu ka xanaaqayo qofku. marka qofka qalbigiisu kaco waxaad arkaysaa mararka qaarkood qofka caraysan wuu isbedelayaa. waxaad arkaysaa qofka hadalkiisa wuu isbedelayaa, wajigiisa suuqa wuu isbedelayaa, indhihiisii way guduudanayaan, codkiisii wuu isbedelayaa, qof waalan oo kale noqonaya. qofka taqaanayo maaha qofkii. waxaa dhici karta qofkii inuu wax dilo oo uu wax caayo oo uu xaaskiisa furo oo ilmihiisii uu dhibaato u keeno oo intaasoo dhanna hadhow dhoomays ogeyn inuu qofku dhaho. waa waxyaabaha caradu keentay ka mid tahay. dadka bini aadamka ah qof kasta wuu caroodaa, laakiin waxay culimadu dhaheen sida laga soo wariyey imaam al-Ghazali, caradu waa saddex qaybood. dadku waa saddex nooc wey. carada qaarkeed waxaa la yidhaahdaa tafriitun, midna waa ifraatun, midna waa ictidaal. tafriidka waxaa la yidhaahdaa qof aan carooninba maba caroodo. haddii la xumeeyo ma caroodo, haddii diintiisii la caayo ma caroodo, haddii ilaahay lagu xadgudbo ma caroodo, haddii xaaskiisa lagu xadgudbo iyo carruurtiisii ma caroodo. qofkaas oo kale waxay dhahaan waa doqon. qofkaas macnaha shakhsiyadiisu waa shakhsiyo doqonnimo. walidaalika imaamu shaafici wuxuu dhihi jiray man istuqdiba falam yaqdab fahuwa ximaarun. qofkii laga caraysiiyo oo aan caroonin waa dameer. macnaha waxaa laga wadaa qofkaasi caqli male, waa doqon. qof laga caraysiinayo aan caroonayn.
waxaa markaa ka dhalata waxa la yidhaahdo qofku inuu markii lagu xadgudbo inuu qiiroodo, inuu masayro, inuu xaaskiisa iyo carruurtiisa u xanaaqo, inuu ilaahay iyo rasuulkiisa u hiiliyo. waxaasoo dhan baa qofka qalbigiisa ka baxaya. qofkaas waxaa la yidhahdaa wuxuu carada ku sameeyey tafriid, macnaha wuu ka gaabiyey intii la rabay. dadka qaarkood carada waxay ku sameeyaan ifraad. ifraadku waxaa weeyaan qofku inuu ku xadgudbo oo uu gaarsiiyo heer ayna gaari karin. waxaa la yidhaha ifraadka waxay noqotaa caradu waa man taglibuhu hadihi sifatu fayakhruju min siyaasati alcaqli waddiin. qof intay ka qaalib noqota caradu ayaa diintiisii iyo caqligiisii ma kontarooli karaan, kontaroolkii baa ka dhumaya. waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid ah nin walaalaha ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay xaaskiisa wuxuu furay 4 mar, weli way wada joogaan 4 mar buu furay. markaasaa waxaan idhi oo 4 mar maba sharciga ma banaanee 3 unbaa la furaaye 4 xagee ka timi. markaasuu yidhi 4 marba waan waalaa ma is ogeyn. saas darteeda culimmadu waxay ugu dhaheen adiga naagbaba kaa furantaba. macnaha waa nin caradiisii taxgee joogtaa qofkaas, waa qof waalan oo sababta markaan caro wuxuu waan waalanaya ma is ogeyn. hadda kama hadlayna axkaamta talaaqa, haddii ninku xanaaqsan yahay wax ma furi karaa, wax ma xugum ma fulin karaa. laakiin waxaan ka hadlaynaa dadka caradooda qaarkood inay gaadho heer laa ikhtiyaara lahu, uusan ikhtiyaar lahayn inuu gaaro. wuxuu noqonayaa suuro aad moodo suuratu lmutari, qof khasban oo kale oo aan iskontarooli karin. dadka noocaas ah 2 sabab baa u keentay inuu saa noqdo. sababta qaarkeed waa ghariisi, qof jiran baa jira. dad waxaa jira jiran oo sharciyan ilaahay uu saas u abuuray, markay caroodaan isma oga ama jiruu qaba. dadka qaarkoodna waa dhaqan ay barteen. waxaa la yidhaha dhaqankaas waxaa laga bartaa. dadka qaar baa waxay ku dhex koraan bii'o ama dad dhaqankoodu uu yahay qofku markuu xanaaqo oo uu kontaroolku ka dhumo, waxaa la yidhaha waa nin geesi ah oo raganimo badan, oo nin macnaha raganimada ka badantay. qofka meelahaas ku soo koray inta badan caradiisa ma kontarool. wuxuu u haystaa in la caroodo oo wax la jajabiyo oo uu caytamo inay tahay nooc rujuulo ah buu haystaa. marka waa wax uu bartay oo ictiyaadi ah oo uu ka caado dhigtay. carada qaarkeed waxaa la yidhaha waa ictidaal, waana midda sharcigu ogol yahay. ictidaalka waxaa weeye markii xaqaaga lagu xadgudbo ama shakhsiyadaada lagu xadgudbo ama diintaada lagu xadgudbo, inaad carooto ooda reerkaaga iyo carruurtaada iyo diintaada uga raalli noqonin wax ilaahay rasuulkiisu ayn raalli ka ahayn. carada noocaasa nebigu wuu caroon jiray sal allah alay wasalam, saxaabaduna way caroon jireen, salafkiina way caroon jireen. markii aad joogtid adiga shakhsiyadaada ama adiga naftaada haddii lagu xadgudbona inaadan carooninooda iska cafida. nebigu saas waa sal allah alay wasalam, markii diinta lagu xadgudbo, ilaahay lagu xadgudbo wuu caroon jiray. asaga shakhsiyan marka lagu xadgudbona ma caroon jirin nebigu sal allah alay wasalam. waxyaabaha la wariyay waxaa ka mid ah axaadiista arrinkaa ka hadlaysa. nabiga sal allah alay wasalam maalin maalmaha ka mid a waxaa isla socday nebiga iyo cumar bin khataab radia allahu canhu. marka nin yuhuudi ah baa ka hor yimid. ninkan yuhuudiga ah nebigu dayn ku lahaa, xooluu nebiga ku lahaa. markaasuu wuxuu yidhi su u soo socday buu nebiga kuleetiga ku dhegay, wuu qabtay soo aad u xanaaqsan. markaasuu intuu nebiga qabtay oo uu soo jiiday ayuu wuxuu yidhi iqdi lii xaqii yaa muxamed, muxamedow xaqaygii isii. si aad u adag oo xanaaq ku jiro oo kabadbadis ah. markaasuu wuxuu yidhi fainakum abnaa'a cabdilmuطalib qawmun muطalun. idinku haddaad tihiin reer banu cabdilmuطalib, adiga familkaad ka dhalatay, waxaad tihiin dad dadka meermeeriya oo xaqooda u diida, xaqaygii isii. waa hadal aad u xun wey. cumar baa marka xanaaqay. cumar haddii ilaahay iyo rasuulkiisa lagu xadgudbo xanaaqiisa ma qarsoomi jirin. markaasuu yaa rasuul allah dacnii adribu cunuqahu,
كلا حنك عن مدح كجوي وهنا كجوي لها دي لدين لها لكن عمر لفتي سكستو وحناقه أمر كالنبي يا أمر كإله بعلني كان وقافا عند كتاب الله مركز النبي وحيري يا عمر ننكس دا كله أنا قال للربي إن أضوح إيش شيخته أصلاً إن أضوح إيش شيخته لكن ما أدري كرت أصلاً وحال الربي إن أضحضه حتى هذا سوى نكسب أخلاق لأفاتسه أنا إن أتلاف ننك حقي سسي بالحق ولا مركز النبي وحيري عمر وننك عن وط قريجة هبلايو قبل أنصاريته والنبي صلى الله عليه وسلم وحول مركز كوغاب وحيري قبل ناس أوجي lacagtiina ninka sii xoolihiisa sii markuu ninkii baxay ayuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam umar oo markaad ninka xaqiisa u dhameystirto waxaad ugu dartaa 20 wasqan waxaad ugu dartaa 20 wasaq waa raashin aad u badan ugu dar markaasuu umar wuxuu maxaa dhacay sababtu waa maxaan ziyaadada ugu daraya markaasuu sababta waa kan nixisay waxaad ku tiri waan dilaya waad ka naxisay bal ikhwaani waxaad fiirisaa nabiga sallallahu alayhi wasallam nin kuleetiga haysta oo caayaya oo la adiga iyo aabahaaba saasaad ahaydeen ayuu wuxuu leeyahay umar oo ninkan wad xoolihiisii sii una badiyo waxaad tiraahdaa waa naxdintii aan ka naxinay ninkii markii guriga gabadhii la geeyay oo umar uu siinay lacagtii uu lacag umar marka aad buu xanaaqsan yahay markay jidka sii socdeen ninka uu fiirinayaa wuxuu rabaa inuu dilo حسنية علاش ما كل فتاكن هذا حسين النبي قال كي حوليس السيء اسكتاف أصله كركرة يا عمر وآب وحناقصن بونك العكتي حوليس وتري وعي كرسو ما كود أنتهي قاسي هوا يد أنتهي سوي جوادي لبعتن وسكن لبعتن كلاي كنت مركز سوي تن كدرسو مركز سوي محيطه قاسي النبي قال وحي وقدر وحناق كحنا جسات كن حسين منك كدرس أيضا markaasuu markuu qabsaduhu wuxuu yiri niyow waxaan ku sheegayaa markaan ninkan kuleetiga qabsanayay diinteena waxaan ka baarayay dhaqanka nabiga sallallahu alayhi wasallam inaan fahmo nabiga la soo diri doono tilmaamihiisa marka tilmaamihiisa oo dhan baan helay hal mid ma ahana midaasuna waxa weeye ma caroodo marka asaga shakhsiyan lagu xadgudbo marka asaga laga xanaajiyo ma caroodo laakiin marka lagu xadgudbo ilaahay buu caroodaa marka waxaan rabay inaan test gareeyo oo ninkan imtixaamo waxaan ogaaday inuu rasuulka ilaahay yahay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah markaasuu umar ninkii intuu ku soo booday oo uu hagsiibu madaxa ka dhunkaday ninkii oo hadda rabay inuu dilo sababtoo ninkii walaalay noqdeen waxay taasi cadeynaysaa qofka muslimka uswa ugu sugan adiga marka laga xanaajiyo waxa dhici karta inaad caytanto inaad wax disho inaad wax samayso inaad wax aad u qadaran samayso nabiguna saas oo sallallahu alayhi wasallam nabiga kaliya ma ahana hatta asxaabtiisa wuu baray wuxuu baray marka idinka leedin ku xadgudbo adiga hadii lagu caayo sakajaan baa tahay baa tuug baa tahay baa beenaala tahay baa ha xanaaqin ha argoosanin لكن هدي إلهي اللي حد قدبه مركز عرقوس أبو هريرة رضي الله عنه أيان الأسرة قلي مركزه عاي سئاله عاي وحي توق باتاي بينالاتاي وحدا أبوهم بكتهمي أبو هريرة مركز ودب صدينك هذا الكيسي مركزه قبري أشقين جتا أدوني بوحي أدوني ويسائي كان بيئي كان قبري بيئي كانت أبو هريرة هو ويسيست نمكن ولو عايا markuu weysaystay buu intuu xagga u jeesaday buu gacmaha taagtay ilaahay uu baraya marka ninkii uu naxay Abu Hurayra haduu habaaro waa u dhamaatay uu ogyahay Abu Hurayra hadalku yifiiriyo wuxuu yiri Allahumma inna 'abdaka hada sabbani ilaahay adoonkaani uu icaay wa qala fiya ma la a'lamuhu 'an nafsi wax aan naftayda ku ogeyn buu iga sheegay wuxuu tuug baa tahay tuugniman iskuma ogin وحي بينالا تاي بينالا نمنا اسكما اوغي وحو ايغا شيغايا ما اسكو اوغي اللهم ان كان صادقا الهي وهدو رو شيغايو فيما قال عني وحو ايغا شيغاي فاغفر لي ايدن بداف وان كان كاذبا هدو بين شيغايانا فاغفر له الهي ودن بداف نكان وين ما تشاكري
man ugu jira qof saas oo kale heerkaas gaaray ninkii intuu ooyay oo Abu Hurayra uu ku soo foorarsaday oo madaxa uu ka qabtay oo shushumiyay buu wuxuu yiri Ilaahay ku dambi dhaaf oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ku tarbiyay saxaabada inaynan xanaaqin marka ayaga laga xanaajiyo laakiin inay xanaaqaan marka diintooda wax laga sheego waxa ka mid qiso kale nin safiih waxa la qofka axma garadka oo doqonka ayaa wuxuu soo galay Abu Dharr al-Ghafari markaasuu caayay maanta dhan uu caayaya Abu Dharr hoos u fiirnaya markaasuu Abu Dharr qarbu u fiiriyay wuxuu yiniyo iga dhaaf bas aamus nin wali uu sii wada saan baa tahay markaasuu wuxuu yiniyo bas aamus markaasuu wuxuu wallahi baana aamusaynin haddaad hal kalimad idhahdana boqol baa ku dhahayaacaya ودلمنا وكجر دريه مركز أبو ذر وحي والله هذا بقل إن هذا إن أنا كو جوابين مركز ننكي انتو دالي سوء عاي بقل بودها وما جوابي وحي وحاد ربتده والله بأنا كو جوابين إلا ننكي واسكيتك مركز دم وسيهجره رضي الله عنه النبي كتب به صلى الله عليه وسلم وحال حصوصة إخواني وحياوها أن ليعبي وحاكمي ذا waxyaabaha hadda dhaca ugu sahlan waxa kamida nin baa caroonaya carooday waxaan akhrinay bari qiso journal waxaan ka akhriyay nin Pakistani ah ayaa xaaskiisa u xanaaqay marka salaad jumcu soo tukaday uu xanaaqsan yahay salaad jumca markuu soo tukanayo gurigiisa soo aad u xanaaqsan markaasuu wuxuu yiri laba gabdhood oo dhashay labada gabdhood iyo adiga ii imaada markaas waxay tiri guriga xaafad bay jiraan oo nin qof baa wuxuu u dhigayaa xisaab waxa soo tuusha ma loo dhigayaa qof baa tuurin sameynay kaasuu u yeertay saddexdoodiba intuu miiskii soo fariisiyay oo uu bastool soo qaatay buu saddexdiiba dilay waan muslim salaad jumcu soo tukaday markuu saddexdiiba dilay ayuu bastooladii intuu dul saaru wareeray soo ooyayo dhulka saddex ayaa loo yimid booliskii baa qabtay maxaad u dishay wixii waan xanaaqsanaa ma isogay waxaan sameynay xaaskan isku xanaaqnay waxaan naagtaan labada gabdhood dil waxaaskiisa way dhacdaa وهذا وحيابها اللي waxa kamida walaalaha kamidaha maalinta xaas yimid marka xaaskiisi uu saddex mar buu furay wali wuxuu rabaa qiil in loo raadiyo maxaad ku furtay saddex marba way iga xanaajisay wax la isku hayo ma jirto way iga xanaajisay marka waxaan anaa iga leex markaasay si madax dhigtay waan ku furay iga leex albaabka maalintii kale waan baxaya waxay tiri ma baxaysid mana iga leexo iga xanaajin waa ku furay saddex mar simple waa xanaaq sanaya xanaaqa qofku uu control karin oo heerka gaaraya waxa ku tusaysaa qofkaas inuu jaahiliya waxaan arki doonaa markaan gaaro sida loo cilaajiyo oo loo daaweeyo xanaaqa qofka muslimku inuu saa ahayn waxyaabaha yaab kale waxa kamid ah zaynul aabidiin hadda waxaan ka hadlaynay nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii nabiga ridwaanullaahi calayhim taabiciintiina saxaabadaas sii baray haddii laga xanaajiyay inaynan xanaaqin ilaa ilaahay iyo rasuulkiisa lagu xadgudbo ama diinta lagu xadgudbo nabigu markii diinta lagu xadgudbo wuu xanaaqi jiray waana arki doonaa zaynul aabidiin ninka la dhihi jiray waa cali ibnu xuseen ibnu cali ibnu abi aalib cali ibnu abi aalib baa awow ah wuxuu ahaa nin aad u xaali u nadaafad badan oo qurxoon oo cadar badan baa ka soo carfi jiray markuu jidka marayo asagoo markii jidka socda wuuna socodkan uu boobsiin jiray markuu socdo ayaa waxa ka hor nin khaariji ah nimanka khawaarijta la jiray oo cali ibn abi talib iyo duriyadiisa aad u nabca markaasuu wuxuu yiri ninkan saa u socdo oo quruxda badan oo cadarku ka soo carfaya waayo sale waa zaynul aabidiin cali ibn xuseen ibn cali ibn abi talib markaasuu ma zaynul aabidiin ba sale ha suuriya istaag zaynul aabidiin marka waa nin sheekha oo dadka dhan ka dambeeyaan oo duriyadii cali ibn abi talib markaasuu istaagay markaasuu waxaan rabaa inaan ku maqashiyo adiga iyo aabaha iyo awowga caydi aan u tiriyay dhageyso markaasuu haye markaasuu cayda wada u qabtay saan baa tahay aabahana saan buu ahaa awowgaana saan buu ahaa gaalaad ahaydeen saan waxay dhihi jireen cali iyo duriyadiisa dhan waa gaalo markuu dhameeyey ayuu intuu qaslo wuxuu yidhi
كأن الرجل غريب نيا وحاضو اكتهي نين قريب اهو ميشان سترينجر كو اهو دادكو اينان اقونين ما مسافر باتا مركاسو يا ها سو اذن انت ضيفنا انا مرتي ايتاي مسافر باتاي غريب باتاي انا مرتي ايتاي هداد قرو اوباهتي قرقيقا كسيحينيا هداد در اوباهتي دربان كسينيا هداد لعاق اوباهنتاي وان كسينيا هداد دن مقالة كلا هنا انا كوك قذية او كراعية ولالكي باتاي مسافر اه حق بعد هو لهي مرتي بعد ايتاي وحا ربتدي ويدسوان كو سمينيا نيك هو يابا وفيريي وقف على عيني انه محل هذا منك فرق صار الشفرات على صار هداد هذه منك قف قد الذي هداد هذه والاخلاق انتهى عقل اديك يا اباها يا اوغا والاخلاق حميده مدها يقف كان محو كودا maxaa ku kalifay zal aabidin wasaas waa dadka la rabay inaan ku dayan markaasuu wuxuu yiri wallahi magaaladan markaan soo galayay kunta abghad an-nas ilayya dad adaan kugu nabca waxaana ka bixi doona anigoo dadka adiga kugu jecel ayuu yiri nabiga ku tarbiyay sallallahu alayhi wasallam nabiga ku tarbiyay waxa wax yar ikhwaani aan arkayna fiirinayna damul ghadab waxa carada la yiraahdo ayada oo sideedaba sharciyan aan fiicnayn haddana islaamku meel cad ka istaagay waa la inoo qeexay waxa ay tahay iyo dhibka ay keento waa marka si xul loo adeegsado waxaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waa caroon jiray laakiin waa marka lagu xadgudbo ilaahay iyo rasuulkiisa marar badan bay dhacday وانا اركي دونا مرض وعروضه النبي صلى الله عليه وسلم من بقى يمد مركزو وحو كيري ابو هريره حديث كوري رسولك الله اي دردارا نين دلن يراه waxaad xustaa gabadha la yaraha diin u baahan ku timid ku tiri iwaani waana ishad nin ahlu bayt guri la reer le ku walaalo iwaani give me some advice ila tali markaasuu wuxuu ku yiri la taqdab ha aroon markaasuu faradda uu ku celi ninkii uu yasaya ha aroon wax weyn ma wuxuu lecture dhan buu sugay rasuulka ilaahay ishad dardaaran la taqdab ha aroon وكعلي نك عندنا رسولك الله إيشك لا تغضب عراني النبي صلى الله عليه وسلم نك رواية حديث كان بخاري باوري رواية قارك وحيليه نك وحويري مركان فكري وحان أجادي لبعت أدن عرض أيام فرقوا أفرته هذا أنا عراني وحرك عم الله ضيان بقول في الصلاة وحمد ليسد هذا أنا عراني وحما عايسد دد من عايسد عقدد ما كجليسه هذا العرانين وحكلا دعدي النبي صلى الله عليه وسلم حديث امام الترمذي وريي ددك بني ادم كابو النبي الصفين ددك جروبيو وحددك كميدا وددك دغيستا وان منهم البطيء الغضب سريع الفي ضد مع عرضان لكن مركي عرضان هو كسلابتا دد ساجر ما انت دهداد وحكو شيء سميس مع عرض هدو عرضنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقولوا هرك صلى الله عليه وإن منهم سريع الغضب سريع الفي ضدك قار كودنا وإلى هذا كلمات بعدها سووا عرانيا لكن واحد يركض وسك صلى الله عليه مركز النبي يقول فتلك بتلك مركز النبي يقول حليه ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفي تدو حاجرة هرك عراضة هدنا ولي قد أنصر نقنين بجرة marka suu nabigu wuxuu dadka waxa ugu khayr badan qofka aan horay u caroonin haduu caroodana markaba soo laabto dadka waxa ugu shar badan qofka isla markaba caroodo hadana waliga aan soo laaban ma dadka qof arkaysa wax yar baa laga xanaajiyay markaasuu wuxuu ku leeyahay waligay qofka ma salaamayo ani asaga waan istagaalsanahay maalin buu iga xanaajiyay hal kalimada waxa la yaabis وحال يري يحيى أيا وحا يمد نبي الله يحيى أيا عيسى بن مريم بولدر دارمي يولدر دارمي مركاسو حكير بالي لا تغضب عران نيو عرض اسكيل علي مركاسو إني لا أستطيع أن لا أغضب مع أود إن أنا عراني إنما أنا بشر بني آدم معنا بني آدم هو عرانيا وحكى لإيشا وأنا عرانيا مركاسو حيري لا تقتني مالا مالها كيدسنن هذا عرض هذا رتد ما ديني سماها مالها كيدسنن مركاسو وحيري هذا عصا تنا سمين كرا
في قفك بني آدمك هو أولا قفك العكتي صدق إنه صدقيسته لكن ما أوله إنه عرض إسكايل عليه وحتى مثلا عرضه هو خطير وآب وآلك وحيابها يابك لو حكمي له نبي الله إنك اللي ذو القرنين أيها حالي ملك ملائكة إله كم إذا الله كلامته ذو القرنين وأنك صالح قرآنك كشيكيني مركزوه حكيري علمني علما أزدد به إيمانا ويقينا وهذا برتاع علمي إيمان يقين أنك زيادة صدق يقين توحوي إن هذا ولي إلهي كشكل ودينت هذا كشكل ورسولك هذا كشكل إيمانك وحوي إن قلبي جاجا وإلهي آمنه أتكو قناعه وإيمانك جاء نقضى إقرار إياه أفكعت كده هذا والعمل كنا لا تبعده مركزوه حكيري لا ليري هذا الكافرين وحكي لا تغضب هعران فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب شيطانك بن آدم وحكا أود بديا مركو عراضه وحالي هذا الكاس أكله أيها الشيطانك نبي موسى كيري وحكيري نبي موسى ننك حوق بدن مركو عراضه وحاكو كنترولا سيدا عهوت بنوني وعيارته أكله فيري بانو عيارا ninkii xoogga lahaa oo aqliga lahaa uu waalanaya waa safiih arutiisi uu laynaya miyada arag waligii ma aragteen waalid lagu leeyahay hadduu caroodo waxaan arkay beri hooyada kamid ah waxay ka calaacalaysaa ninkeeda waxay leedahay hadduu gabdhihiisa oo iskuulka aada hadday homework kala shaqeynaya caawa dhan hadday maalintii mid kamid ah homeworkaas iskuulka ay ka yarayso intuu rabay wuxuu rabaa 10 out of 10 inay hesho hadday ka yarayso guriga markay soo gasho ay dhahdo darajadii uu arko oo hadduu xanaaqo gabadha uu jajabinaya ninkaas wuu ku tumanaya waa ilmo yar ilaa ay mantagto madaynay soo uu tumanaya hadhowna wuxuu leeyahay ma ogeyn waxaan kugu samaynay ayuu leeyahay wuxuu ka xanaaqay homeworkii bay waxay keentay 10 bay 8 bay keentay ama 7 bay keentay fiir shaytaan baa ku ciyaaraya marka qofkii xaaskiisii buu furaya dadkii buu caayaya gaalnimu ku hadlaya waxyaabo artay dad xataa gaalnimo ku hadlaya markay xanaaqaan oo waa arkay dad badan oo dhahayo hadduu ninkaasu muslim yahay anuu muslim ma ihi dhahayo wuu xanaaqsan yahay war ilaahay ka cabso diinta uu wata anuu ma haysto isku diin ma nihin isku xanaaqeen marka shaytaan baa ku ciyaar lacab wuxuu ugu ciyaarayaa sida caruurta balolo ugu ciyaaraan oo kale ayuu leeyahay waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah oo u baahan qofku inuu fiiriyo imaam Abdullah ibn Abbas ayaa aayada quraanka oo ilaahay uu leeyahay idfa' billati hiya ahsan yuuxu ku fasiri jiray baa la yiri idfa' billati hiya ahsan waxa laga wadaa markaad carootid sabir waliga sabirkii caradayay kala tagin wala carootay sabir yuu dhigi jiray waxaan rabaa wax yar inaan ka sheekayno waxaan nabigu caroon jiray sallallahu alayhi wasallam qofka bini aadamkuna wuu caroodaa kaama sugayo adiguna hay iga sugin bini aadam baan nahay inaan caroon laakiin qofku hadduu caroodo muxuu sameeynaya waa mas'alada ugu muhiimsan muxuu sameeynaya qofku hadduu caroodo dadda waa aragteen weelasha jajabiya qof waxa dhici karta inuu gurigiisa jajabiyo qof waxa dhici karta inuu guriga iskaga tago qof waxa dhici karta inuu dagaal sameeyo hadduu caroodo is ogeyn ilmihii ba hooyad bay gabadhi caayaysaa way caraysantaa isma oga wax yar waa dhici karta waxyaabaha hadda tan waxa kamid ah ka soo qaad waxaan ka hadlaynaa tusaalayaasha nabiga sallallahu alayhi wasallam gabar baa tahay gabdha saaxiibada ah ku yimid adoo gabdhihii kula sheekaysanayaan oo shaah cabaya ama biyo ama waxa rabtaan oo faraxsan hooyadaaba intay ku tiiday waxay ku tiri naadho ilaahan guriga iga saar ay ku tiri gabadhaas maxay samaysaa habartaas waa la cunaya iyadoo Soomaa gabdhaha iska dhisaysaa habartu waa la fiiqaya waa la caayaya hooyadii gabdhaha hortooda waxa la saaxiibada kama hadli karti saan ma sameyn karti waxaan fiirinaa nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu caroodo qofkaas oo qof muslim way caroon kartaa gabadha waxa dhici karta in qofka laga xanaajiyo laakiin waxaan arkaynaa haddii qofku caroodo nabigu soo caradiisa u kontrooli jiray sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay abu muusa al-ash'ari ayaa maalmaha kamida nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam xadiis bukhari muslim wariyeen markaasuu wuxuu yiri rasuulkii ilaahayow waxa isoo diray aniga asxaabtaydii waa nimanka ash'ariyiinta ah oo la joogay waxayna ku weydiisanayaan inaad siiso geel ay dagaalka ku aadaan
su-aashaas weydiiyey waxaa dhacda marka qofka bini aadamka ah mararka qaarkood waxaa dhici karta asagoo xanaaqsan inaad u timaado oo caradii uu kugula dhaco wuxuu leeyahay abu muusa alashcari wawaafaqtuhu wahuwa qadbaan walaa ashcur waxaan ku soo aaday nebigoo xanaaqsan oo aanan aniguna ogeyn markaasuu wallaahi baana waxba idin siinayn buu yidhi nebigu sal alla alay slam abu muusa alashcari wuu naxay waxba idinma siinayo iga taga abu muusa alashcari wuu naxay wuxuu is yidhi malaha munaafiq baa tahay adigu ma ogid ilaahay baa nebiga qur-aan kusoo dejiyey wuu iska baxay laakiin nebigu ma caayin sal alla alay wasalam hadal xun ma dhihin wuxuu yidhi keliya waxba idinma siinayo wuu ku yidhi abu muusa alashcari wuu iska tegey caguhu dhulka ku jiidaya xataa naxdin wuu socon laaya saaxiibadii buu u tegey markaasuu yidhi nebigii saasuu igu yidhi wuu soo cayriyey wuxuu yidhi wallaahi baana waxba idin siinayn laa axmilukum calaa shay wuu igu yidhi muxuu yidhi anoo marka saaxiibada intaa u tagay u sheekaynaya ayaa abu hurayra dhawaaqayaan maqlay oo dhahaya yaa cabdallah ibni qays cabdullaahi ibnu qaysow ajib rasuul allah rasuulka ilaahi baa ku yeeraya u tag tala ma aayad kale kugu soo degta haddana ma wax kale lagu samayn doona soo noqday buy markaa nebiga u imid ayuu wuxuu yidhi khud haadayni alqariinayn labadan riti qaado labadan kalena ku darso labadan kalena ku darso waa 6 saaxiibada u geey ninkuu yaabay nebigu faraxsan yahay sallallahu alayhi wasallam kama xanaaqsana wuxuu yidhi labadii riti 6 riti baan soo qaaday saaxiibadii baan u keenay waan u sheegay way la yaabeen markaasaa waxaa yidhi wallaahi inaana been sheegay nebigu marka horena wuu ii diiday haddana wuu isoo siiyey markaasay waxaan iri buyi waa inaad ii raacdaan oo saxaabada weydiisaan saxaabada u tageen way weydiiyeen waa runtii bay dhahan maxaan qisadaa ula jeednaa waxaan ula jeednaa haddaad carooto ood go-aan gaarto go-aanka ugu adag baad gaartay waxaad dabacday waxaan inaadan weligaa samaynin waxaad aragtay intaad fakertay inaad go-aankaagu khaldan yahay weligaa ha ku madax adaygin rasuulka ilaah kama fadli badneed markaba ka laabo haddaad xataa dhaarato nabigu wuu dhaartay sal alla alay wasalam wuu dhaartay wallaahi baana samaynaynin buu yidhi haddana isla markiiba wuu sameeyey dhaartaada ka kafaaro gud markiiba wixii samee shaydaankiisu kaa faa'iidaysan xadiid kale nabiga sala allahu alay wasalam nin baa u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay haddaan alaab meel ka helo luqada baa la yidhahdaa maxaan ku sameeyaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sanad dhan yaboohi yaa alaabtaan iskale yaa alaab ka dhuntay dheh haddaad weydo qofki iska lahaana iska qaado markaasuu haddaan ari hela ka warran dhumay markaasuu nebigu wuxuu yidhi qaado ariga waxaa dhici karta haddaad ka tagta bahal baa cunaya ama adaa iskale ama walaalkaba iskale ama waraabaha cunaya marka kaxee gurigaaga gee markaasuu yidhi haddaan geel hela ka warran ninkan too much su-aalihiis tiraday ka bateen nebigu markii waa xanaaqay sal alla alay wasalam markaasuu nebigu wuxuu leeyahay fagadiba rasuulu llahi sal alla alay slam xata axmarat wajnataah nebiga ilaa wejigiisii guduutay wuu xanaaqay aad buu u carooday laakiin nebigu sal alla alay wasalam ma caytami jirin wax kale ma dhihi jirin wuxuu yidhi intuu ninkii fiiriyey maa laka walaha oo geela maxaa kaa galay geedahaasay iska cunaysaa caloosheeda biyaa uga buuxa dawacada iyo ma cuni karaan iska daa faraha ka qaad ninkii lahaa ilaa uu ka helaayo nebigu wuu xanaaqsan yahay hadal fiican baan ku hadlayaa dadkii way dhahayaan waxay dhahan wejiga nebigu wuu gaduutay haddana hadal fiican buu ku hadlayaa fiiri si kasta haddaad u xanaaqdo carabkaaga hadal fiiri bini aadamku maxay sameeyaan qofku wuu hadlayaa markuu caraysan yahay 5 minutes kadibna wuu shallaayaya soo maha saas alla maxaa igu watay maxaan u caayay waa aragna wax badan dugsiyada xataa oo caruurta fiiri macallimiinta fiiri waxaa dhici karta macallinka inay 3 kelimo xun la isu raaciyo ardaygii inuu ooyo isla markiiba uu dhaho macallin waa khaldana ma is ogeyn maxaa ku dhibaya haddaad sida nebiga afkaaga xirato hadal fiican dheh caradaadana cisho waxyaabaha nebiga keliya maahana xataa caaisha way xanaaqi jirtay sal alla alay wasalam rasuulkay ku xanaaqi jirtay markay caroota maxay dhihi jirtay nabiga maalin buu caaisha la kaftamayey markaasuu wuxuu yidhi wallahi caaishoy waa xaaskiisii way is yaqaanaan markaad caraysan tahay waan ku gartaa markaad faraxsan tahayna waan ku aqaanaa see ii garataa markaasuu markaad faraxsan tahay waxaad dhahdaa laa warabbi muxammadin
إلهي محمد سميه بان كل أرتي أرين كساس معها مركا حناسدنا وحدث لا وربي إبراهيم إلهي إبراهيم سميه كل أرتي ساس معها مركا سيتري والله رسولك الله واحد تقانا مركا عقان مركا كعرر يا إن شاء في ما يعيثن وهم أي شيء إن أحكي أدي عرر ذي ويقرستي نبي نقول فهمي صلى الله عليه وسلم هذا عروتي خير كاغتن وح كبر بريا أما عروت هذا كبر بريان هدين وحال هذا قفكو دقيقة وعراضي أيو نرشي سنة أو كمد الدنيا يبر بريا قفكو نرش هذا واحد يكتب يسكت أحيا عضو هذا دقيقة هذا عراض وحيابها بعد وحكمد عائشة مركان كتبنا أبو هريرة رضي الله عنه أياه حليه هاي نبي وحي صلى الله عليه وسلم وحديث إمام البخاري ومسلم أي وريان إلهي باوحو قري وتصفيك إلهي مركا لغا شاكين أيو محال لغا فائدة وحيالها لغا فائدة وحاكم إذا إنا كنت يطو وحا إلهي لغا شاكين صمع وحال إلهي هو نحرسة إنا نحرسته وحال إلهي هو حشوضة إنا حشوضته وحال إلهي هو عفيا إنا عفي سعدقنا ضدك وحليه هاي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه إلهي مركو مخلوق أبوري كتاب وقري أصغانا اسكو قري واسكو شاكيني وهو وضع عنده على العرش عرش قدوشي سارية كتاب كاس دوك إلهي قري وحسارية كتاب عرش قدوشي محوك قري إن رحمتي تغلب غضبي naxariistaydu waxay ka qaalib noqotaa waxay ka awood badan tahay waxay ka dulmartaa caradayda fiiri ikhwaani waliba waalidiinta aabayaasha iyo hooyooyinka xadiidkaas waxa ugu soo uswo caradaada iyo naxariistaada ha badato marka carootada ciyaalka leynayso oo aad leedahay hadhow isma ogeyn oo ay dhici karta dhib inaad keentid wakadalika macallinka dugsiga dhigaya markuu intuu carooday ay dhici karta inuu ciyaalka dhib u keeno waxaa dhici karta hadduu xadiidkan xusuusan lahaa in naxariistiisa uu ku qarin lahaa caradiisa uu ku qarin lahaa waa xadiid cadiim oo aad u weyn xadiidkaas nabiga laga wariyay sallallahu alayhi wasallam waxaan rabaa wax yar inaan ka sheekeeyo dhibaatooyinka caradu keento dhibaatooyinka caradu keento waxaa ka mid ah marka koobaad mar haddaad carooto shaydaan baa kaa faa'iidaysanaya bal fiirsada hadduu shaydaan meesha soo galo إلهي بعرانية مركا عدو أما إلهي رالي قلي أما الشيطان رالي قلي لا وضع مدوي حتى عرض هذا عاد فلسه أو وحي عاد سميسه الشيطان ما رالي قليسه حتى عرض هذا قريسه إلهي رالي قليسه ولذلك كما أنت قيامة دعا إلهي وحولي أنتو ضدك أدى واقع قفكي عرق وعراضي أسوى أودي إنو سميع عليي أو عشدي maanta waxaan uga dhawaaqi doonaa dadka dhan dhexdooda waxaana sii doonaa xuurul ciinta inta uu rabo intaas oo wanaaga baa la siinaya dadka dhan baa laga soo dhex bixinaya hal maalin baad carootay adoo awooda inaad samaysabaad wixii iska daysay caradii baad celisay ilaahay baa maalintaas dadka dhan kaaga dhex yeeray hebel ama heblaaya soo istaag abaalmarin weyn baa ku siinaya waa xadiis saxiixa nabiga laga wari sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah waxaa dhici karta inaad carooto ilaahay aad ka caraysiiso وحديث كواد قرنيسان بلال إيا سهيب إيا سلمان سلا جوغا أبو بكر صومري مركزا وحا صومري نمكن اللي جري أبو سفيان نمان كيما وحي دهن ومساكينتي صحابتها ولا سيفتي إلهي ماشي للرباي ما أيمرين أبو سفيان بقى ولي النال أبو بكر بقى وحيري ورم أضي قريشات بقى سا كل هذه من كان صغضي قريشات معه أبو بكر وتجي النبي وتجي شاكذب وشاكي وحيي أبو بكر حضين من كاسي ما أنت أتكعريسي إلهي بأتكعريسي فير قف مسلم هذا أتكعريسي إلهي بأتكعريسي هذا مركا أضوع عروته وحد وقتها عرض هذا ضدك اللي كعريسي نيسا أنت الإلهي كو عروني عرض هذا عشو إلهي رأى شكر رادسو وحكم إذا وحيابها أي كانت عرضه قفك أسوقه عريسان إنه واحد له أو نسوقين وقصدي نبي الله آدم لبا ويل بون علي لبدي سي ويل با اسخلافي مد با عروضي كي كرودلي وولالك وقفك ugu horeeyay oo bini aadam oo qof bini aadam adila haduusan asagu bilaabi lahayn adduunka la isma dileen
ilaahay muxuu ku abaalmariyay ilaa qiyaamadu ka dhacdo qof kasta oo qof dila dambigiisa oo kale buu ninkaas u leeyahay adduunka inta dad lagu dilaayo dhan hatta carruurta masaakiinta la leynayo dambigooda ninkaas iskale qofkii dilayna dambigiisa uu leeyahay marka ninkii muxuu sameeyay walaalkii buu dilay asagoo haddana u naxsan buu xambaaray maalintii oo dhan wuu wataa wuuna ooyaya maxaa u dilay walaalkii weeye ma is ogeen wuxuu u dilay ayuu leeyahay marka caradu waxay keeni kartaa inaad wax dishaadoon is ogeen hadda waa aragteen barnaamijyo iskuullada waxaa arkaysaa takhasus dhan oo lagu barto oo la dhaho anger control soo lama dhaho caradaasaa u controli lahayd islaamkaana barayaysaad u controli lahayd seed u controlaysaa carada waxyaabaha lagu controlo waxaa ka mida kow haddaad carooto ilaahay xasuuso shaydaankana ilahay ka magan karo fiiri weliga ha iloobin haddaad carooto waxaad dhahdaa acuudu billahi min ashaytaani arajiim laba nin baa nebiga hortiisa isku cayday mid baa xanaaqay wejigaa guduutay afkoo abuur ka kicinaya nebiguu fiirinaya wuxuu yidhi waxaan aqaanaa kelimad hadduu dhihi lahaa wuxuu helayo dhan way ka tegi lahaayeen hadduu dhihi lahaa acuudu billahi min ashaytaani arajiim acuudu billahi min ashaytaani arajiim way kaa tegaysaa marka maxaad dhacaysaa xaqiiqada waxa aad ka xanaaqsan tahay baad xusuusanaysaa maxaad kala samaynaysaa meesha aad joogto bedel haddaad fadhida seexo haddaad taagan tahay fadhiiso haddii aad socotidna fadhiiso ama istaag situationka ku jirta bedel ka soo qaad qof baad muranteen meel baad wada fadhidaan ka dhaqaaq xagga camal fadhiiso nabiga dhahay sallallahu alayhi wasallam waxaasna waa xadiis saxiixa waxyaabaha la sheegay waxaa ka mid ah axaadiis sheegaysa weysayso waxyaabahan la yaabay waxaa ka mid ah maxaa loo yidhi qofku hadduu fadhiyo ha seexdo inuu qofku dhulka seexdo suu care isaga baabi'iyo maxaa loo yidhi ha weysaysto maxaa loo yidhi shaydaanka ha ka mangal intaasoo dhan waxaa la rabaa caradaada inay fulin oo wixii aad celisaa la rabaa inaad kontaroosho waxyaabaha carada lagu kontaroolo waxaa ka mid a markaad xanaaqdid oo isaga qofkan waad ka awood badan tahay waad garaaci kartaa waad caayi kartaa waad dili kartaa waxaad xusuusataa ilaahay inuu adigana ka awood badan yahay oo uu ku dili karo oo uu ku cadaabi karo oo waxa harta uu kugu samayn karo waana say saxaabadu samayn jireen abubakar baa nin u dhaartay wuu xanaaqay weligay wax kuma siinayo buu yidhi ilaahay baa wuxuu yidhi walaa ya'tali ulul fadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurba ومحا قرابة وحقوق ديسان ألا تحبون أن يغفر الله لكم مركزوه حيري بلا أحب أن يغفر لي إلهي وأن جعل إنا إيدا بداف مركز إلهي دارتينو كودا بدافو وحال حسوستا إلهي إنو كأود بدنيا عفي إلهي باكو عفيني وحاكلا وأرنت أهم سن إنت هدا إنك ولبا بقن كان خصيصا هداد عروتد عامس وأرنك أوفي صد إخواني والدينتا xaasaska isqaba macallimiinta ardayda saaxiibada waa wada khusaysaa haddaad carootid aamus nabiga sallallahu alayhi wasallam hadduu qofku caroodo idaa ghadiba ahadukum falyaskut ha aamuso qofku haddaad aamustid maxaa dhacaysa go-aan ma gaaraysid markaas haddaad adoo caraysan go-aan gaartid waad ka shallaayaysaa waana xadiidka nebigu uu yidhi wax xukumin adoo caraysan u kaadi aamus shibde markii caradu kaa degto ood caadi noqotid oo soo miyirsatid waxaad tidhahdaa qofkaa is hayseen waxaan isku haynay muxuu ahaa waxaad arki doontaa markii hore buur baa saarayd haddana kursi aad ku fadhidaa waad waalayd haddana waad degan tahay marka dardaaranka aan idin dardaarmayo waxa weeye aniga naftaydaba haddaad carootid aamus wallahi haddaad aamustid markaad carootid faa'iidooyin aad u badan baad ka arkaysaan waana arkay dad badan oo ku faa'iiday weligaa ha hadlin ha caytamin ha canaananin qofka ha dagaalamin waada xanaaqday aamus shibdeh shib iska dheh ilaa caradu kaa baxdo insha allah mawduuca intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaan rabay inaan keliya idin xusuusiyo caradu dhibaatooyinka ay leedahay iyo nebigu sal allahu alay wasalam markii xaqa iyo diinta lagu xadgudbay inuu caroon jiray naftiisa inuusan u caroon jirin hadday dhacdo nabigu inuu xanaaqo sallallahu alayhi wasallam mararka qaarkood waa bini aadamku wuu xanaaqaa in markuu carooda caradiisa uu kontarooli jiray bal inuu nabaray nabigu sallallahu alayhi wasallam habka carada lagu kontaroolo oo ay ugu muhiimsanay inta sheegayna inaad weysaysato shaydaanka ilaaha ka maangasho aad fadhiisato
aadan hadlin ood aamusto haddaad situationka ku jirta bedeli kartid inaad bedeshid wallahu yaqulu xaqu yahsawlu billah tawfiiq